السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإذ سلام دمان أصحابتي إذا قالقة أصحابتين قالقة سيتهين في عنتهين أما النبات خفتين إلهي إذن كيس وإذي رجينا مالكسو أدونك كجوكتان soo dhawaada kheyr iyo farxad la soo dhawaada waa maamuwaano iyo mar kale iyo janalkeeni maamuwaano iyo saaxiibada qaaliga aqyaarta sharafta leh soo dhawaada welcome meel kastoo adduunka joogtaan haye welcome idin leeyahay amuurta kheyr allah nooga dhigo dhammaan dhinac kasta ka baahanahay allah naga oontiro aamiin yaa rabbi waxaal adduunyo isbedela imaado anagoon ku tashanaynin waa ogsoonahay in la gaboobayo laakiin yaa kuu sheegaya yaa isdaba qabo yaa ku dhahayo cidne marka waa la gaboobaa waa la baaba'aa waa la timo yareynaa waa la qurux darnaanaa xasuustii tabartii wixii waa uun la baaba'aa ilaahay hana barakeeye gabow jidka kusoo jiraa qofkoo haayana allah u kaalmeeyo inta weli xoogaa xayiga ah uuna taabaninne hayehe allah la heshiisiiyo waa ogtiin waa la cimri degdegaa xaataa marka waxaa loo baahan yahay waxa loo yaqaano self love yaa naftaada inaa gaar u jeclaatid inaa isku xilatid yaa isku xilashaa loo baahan yahay isxanaaleynaa loo baahan yahay isnafaqeynaa loo baahan yahay yaa ducaysiyaa loo baahan yahay howl badanaa loo baahan yahay maasha allah allaha sahla amuuraha marka la yar yahay maaragtay oo jirka dhanba uu jawjaw yahay danta dhan israacsan tahay oo yaa maasha allah hawshaada dhan bay cadcad tahay saasaa rabtaa inay ahaatid in waxba iska kaa bedelin laakiin worn out waxa la yidhaahaa la noqdaa waa la baaba'aa worn out means baaba waa la duqooba waa la gabooba marka self loveka horta waxaa la rabaa yaraanta in nalagu abaabiyo laakiin may dhicin waayo nolosha dhanaa busy ah marmar way jirtaa aan helno wax dhiiragelina waana oo saa isku dhaan iyo saa ha sameyn iyo waxaan ha xiran iyo saan ogow iyo waxaan marse iyo waxaan cun iyo xoogaa goosgoos waa helnaa laakiin yaa iskugu kaa dhufanaa total support yaa iskugu kaa dhufanaa hadda wadamada qaarkood waxaa la yidhaahdaa ilmaha yaraan aa lagu baraa self loveka marka hadday tahay qalbiga ilaali hadday tahay jirkii waa framekaagii hadda sawir haddaa meel dhigto qolof geliso qolofkii wuxuu xanaaleeyaa sawirka warqadda ku jirta sooma laakiin haddii sawirka meel lagu tuuro waxbaa ku daada karo siba u baaba'aa sax xagatimaa gaarayo laakiin haddii frame la geliyo oo qolof la geliyo so it's gonna stay like that marka warqadaas hortaada taala hadda oo maamuwaano ay ku qoran tahay iyo saxaabta ay ku qoran tahay haddaan halkaa iska dhigi lahaa maalintan koo warqadaas gacanta ku dhige dee mar hore jactadii laheedee baabi'i lahe sax laakiin maadaamay galaas ku jirto sanadaad arkaysa waqti badanaad arkaysa video walbay ka dhex muuqataa maamuwaano iyo asxaabta sax waa anigeedii dhaho kusoo dhawaada maamuwaano iyo asxaabta marka framekaas waa naftaadii framey ku dhex jirtaa marka baaba la dareemayo waa your frame haddaad kareem marsato qolofkaagiyaad marsatay sooma laakiin haddaad nafaqo cunto naftaadiyaa siisata gudahaagii neerfahaaga lafahaaga xididadaada jirkaaga hoosaad nuuride marka salafka laguu sheegayo ama self loveka laguu sheegayo ama self careka la sheegaba waa waxaad adiga lafahaaga oo qabsato so sometimes waa la mahmaahay waxaa layidhi qaybiyaa qado nolosha aad daadihinaysaa ka qaday maanta haddaan reerka keer garayno guriga dhaaq xagga dhaaq cuntada kari waxa qabo dadkii aan soornay laakiin adiga naftaada inaad soorinaa dhici karto so dee kool qaybiyo aa qado qofkii nolosha dhan maareynayay ayaa ugu liito waxaa laga yaabaa timihii adoon shalaysan inaad seexato adoon si fiican u cadayan inaad istuurto adoon si fiican u kareemaysan inaad cararto inay jirkaagii cillado aad kala kulanto maqaarkaagii lafahaagii cijiyahaagii timahaagii ilkahaagii xiridkaagii keerkiisina aadan haynin ood ka qaraafto way nagu wada dhacdaa naga dhambo qalbigana saasoo kale waaye xagatimo badanaa qalbiga gaaro sida uqdad nafsiga iyo walwalka iyo shalayga iyo walbahaarka iyo tabashada cabashada maaragtay waxyaabahan aan heli weynay oon u sabri karin dhararka iyo waxaasoo dhan see loo maareeyaa dawamaa loo cunaa dhararka kaa dhigto kaam kaa dhigto waa maya walbahaarka dawamaa loo cunaa ku mootiso waa maya fikirka iyo waxyaabaha qaarkood waxa loo cunaa jirto sharoobo loo cabimaa jirto waa may marka wax badan aa loo baahan yahay inaad adigu fahanto ood adigu ku markaas ku noqoto qurux
iyo kalsooni iyo dhiirigelin xataa caafimaadkaaga quseeyo waxaad hadda cuntaa oo khayr leh ama nafaqo leh caafimaadkaaga yaa cunta waxaad marsataa oo orgaaniga ama dabiiciyana caafimaadkaaga u marsatay marka qof walba muxuu rabaa qurux iyo hanaan kor qurux badan qalbi wanaagsan farxad kalsooni dhiirigelinta oo dhan kasta kaaga timaado marka waa la baahan yahay anaga dhanaa baahan qofaa ooyaayo qofaa murugaysan qofaa xanuunsan qofaa walwalsan qofaa safar rabay qofaa dayn lagu leeyahay qofaa culaab adag korka laga saaro qofaaba la buubsanaaho la iska arkooda in niyadda laga jibiyo oon yacni iska dhihi karin qaabow yac u dhahana lahayn dadaa dadka qaarkood waxay ku yihiin lama canaantaana caanihii daadshe qof maanta aadan canaano karin aa dhibaato kugu haayo mana canaano kartid maanta haddaad canaanatid habaaray sheekadaada ku dambaynaysaa sida ii canaanata daraaddeed waxaa lala soo kala baxaa muujad habaar qoshina ma dhihi kartid sheekada waxay isku bedelmaysaa sheeko qariban oo qaab loo xaliya lahayn marka see la yeela adigana weligaa self love laguma barin oo adkayso oo aamus oo ducayso oo isnafaqee oo ismooti oo ka gaabso oo ka leexo wax ku baray ma leh waa iska ordaysaa dhibaatadiina way ku gaartaa haddaad la murugoota qayaarka haddaad qaylada ka daroo dibi dhalay marka wallaahi waa khatar wax khatara waaye si haddaa u fiirisidne adoo fahmo micnaha lay kaaga xiran tahay ciddee rabtaba ha noqotee marka ani dadkan waaniya waxyaabaha aan u sheego qaarkood inta kama sheego hadday dadka qaar u adkaysan lahaayeen hadday iska sabri lahaayeen hadday ka gaabsan lahaayeen amin see loo xalinaa maanta qof aadan ka maarmin ama aadan ka cadgoosa karin ku dhibaba kasoo qaad adigana soomaali oo dhan kuma barin ilaa iskuulil meel kastii eheli wax walba laguma barin is muhiimay kuu tahay inaad naftaada xanaalaysid amin haddii asxaan laguu sameeyey oo haddii asxaana loo sameeyo waa salafkeerka inala baro si aynan ugu qalbi qaadin fiiri hadda dad waxaa jiro murugada loo geysto ama dhibaatada loo geysto ama bahdilka ama cabiidsiga waxay noqotaba la waasho oo miirkoodiba uu saaldeeyo maskixiinay saaldeeyaan marka qofkiina inuu kaa waasho lama rabo ama qof inaad waasho lama rabo ama qof inuu daraada isku dhex dardaro lama rabo dhibkiina laga dhaafi maa self love-kina lama barin xageed u kici marka waayahe af soomaaliya wax ku fahantaa dadkaagaad maciinka sugaysaa ilaahay ka sakow insha allah inay ku baraan self love-ka ama self care-ka ama xanaaleynta naftaada kuwii ku luraayana lurkii kaama dhaafaynin adigana ma taqaanid sida looga wacdo lurkooda quruxdii iyo farxaddii iyo noloshii iyo kalsoonidii iyo daashoodkiina waad rabtaa lurkiina halkaanuu kuu taagan yaho madax fallow kugu ridaaya dadkuna ma yaqaanaan qofkaan hal maraad gilgishood dhibtay ka dhaaf waa lagugu wadaa ilaa aad qaraxdo oo tiraadid wixii kala go-a ha kala go-aane god lost ilaahu afkeena waxsan ka keen marka soo dhawaada kheyri farxad la soo dhawaada ummadda iyadoon dhibaataba loo geysanin ayay qalbi cidloodaane lonely noqdaane isku buuqaane iska wareeraan macadala iyadoo la dhibay dad badan waxaa jira ila soo xiriiro oo cid wax u dhibta lahayn laakiin mushkilad dareemayo qalbi cidlo dareemayo rafaad dareemayo niyad jab dareemayo lonelyga laguu sheegayaba waa cidlada marka maxaa u malaynaya qof la luraayo qof ammaan waaye maxaa u malaynaya oo geedow gala waaye iyadoon cidu waxbaba noo geysanin aan saa u rafaadsannaha oon self love-ka u baahannahay marka allah noo kaalmeeyo allah noo gargaaro dhammaan haddii laga sheekeeyo what to do waxaad adigu qabsan lahayd waxaad qabsan kartid hadduu alla ku haleeshiiyo waa wax badan sidaad adigu u jeceshahay qof walba wuxuu jecel yahay qaabkuu nolosha u jecel yahay the way you wanted in lagula dhaqmo saasaa adig kuu qalanto ani hadda siyaan jeclahay in layla dhaqmo sida salaanta oo kale in lay nabadgeliyo in lay salaamo in warka lee cadcadeeyo qof walboo wax iga rabo ama aan wax ka rabo ilaahay inuu iga sahlo anigana alla iga sahlo ayagana ilaahay oo iiga sahlo sax laablaabka iyo dagaalka iyo muranka iyo habaarka iyo cayda iyo qaylada iyo rafaadka iyo dadka aanan laga lug bixayn maba jecliba waxaan ka jeclahay adiga haddaad dhib badan tahay qofkii dhib badan waay iyo aniga inaan ilay dhagas ku noqono anigana wax lagu dhibaatoodo allaha iga haayo marka
saasaa anigu iska jeclaa easy wax walba inaan horay u helo inaan sahal ku fahmo inaan maaragtay dhibaato aniga la kulmin anigana ammaan layga helo anigana aan ammaan helo saasaa iska jeclaa dooqayga iyo wixii kaloo kasii fiican oo ilaahay haayaba wixii fiican oo dhanba waa duceeyaa markaan waxaan rabo muraadkayga aan helo ilaahaan u xamdiyaa ilaahaan u shukriyaa waa ilaaha i siiyey waxaan waayana ilaahaan ilaaho iga kaal waayo haddaan israaciyo maxaan ka helaa marka waa aragteen dhibaatada dadka aan salaf loofka aqoonin hal kelmadoo beri lagu yiri aan ku dheganahay aan lagu dheganya saasaa la yiriyey qofkaas la heshiimayey saasuu yiriyey hadda ka hor saas yiriyey haddaa iska cafisid maku dhegi laheed marku dheg ma noqon laheed waa may ko kalsoonidii dadku waa u qiyaasan tahay waa sida kiilooga oo kale hadda kiilooga waa wax qiyaasan soo ma 1 kiilo 2 kiilo kiilii bar waa miisaan kalsoonida la sheegana saasay u qiyaasan tahay dadaa kalsoonidooda maasha allah haddii la xisaabi lahay riije ka noqon lahaayeen sidai kalsoonidoodu dhisan tahay le dadka qaarne ma hayaan zero bay ka yihiin kalsooni dhan ma qabaan xataa ma hadli karaan qof lama hadli karaan waxay rabaan ma weydiisan karaan waxay rabaan xataa iskuma dhufsan karaan saasayna cimrigii ku qaadanayaan waa wax qatara waa markii afaaraha la dhex galo oo aan sheekaysano qofkii wax fahmi karo waa qiyaasi kartaa hooyadaaba ha haysaa la yidhi heybisay rabtaa meeqa boqolaalo qofood ama kumanaano a janalkan fadhido ama soo martay oo anoo maanta oo dhan hadlaya dhahay kuma fahmin because yaa ku bareba hadalka inaa fahantaba yaa ku bare iska dhaaf hadalka caadigaaye dhaga hadalkay dadku yaqaanaan gabaygay yaqaan geeraarkay yaqaanaan hadallada sarbeebtahay yaqaanaan hadalla sii xag jiro oon anigu waxba ka garanaynin inay kuu kasaayaan meeqaa luuqa kasoo wareegata oo kelmadaan fahmi waaya ii fasirtay khayr allah siiyo maasha allah marka waxbaa laysku dhaamaa horaa loo mahmaha waxaa layidhi wixii kaa maqan walaalkaahay jiraan adiga khayraa haysataa aniga xaggayga waxbaa soo jiro walaasha kaloo ku ag fadhida way haysaa dadka dhagaysanaa brograamka oo dhanaa haysto haddaan 1,000 qofood brograam ku dhagaysano laga yaabee 800 oo kamida inay xirfad tob haayaan ilaahay ha u barakeeyo marka salaf loofkaas dhammaanteena u baahan ama xirfad hay ama da'daadu ha yaraato ama ha weynaato xaas ahoo ha ahaanin dalkii joog ha joogin waxaad rabtidba ku sugno we all need self love nafteena inaan jeclaano waa u baahanahay waayo yaa kuu dhaamay ilaahay ka sakow naftaada maanta haddaad caraysan tahay yaa ku og ilaahay ka sakow yaase carada kaa baabi'i karo hooyada aabbaada iskuul kaa tagaan kuma cara baabi'i karaan haddaad sanka biyo kulu ka keenaysid sax haddaad farxaano tahayne waa inaad ilaahay oo ii xifdi tiraahdo farxaannimadaada waayo waa laga daba imaan karaa adigu intaad is ilowdo adoo iska farxaansan waa laga daba imaan karaa waa lagaa qayla sii karaa marka waa la itixaamaa shaydaanka waa ma dhaafayo farxadda waa daba socoyaa marka allahna xifdiye dhammaan ii soo dhawaada meesha meel dhiirigelin waaye salaf loofkaas jeclow naftaada jeclow insha allah dantaada u sabar horaa waxaa loo yidhi ha ka deyrina noloshaa dariska u tahay marka nolosheena allaha noo miceeyo waxaa haysatay ha yaraadaan ha badnaadaano ilaahay ugu xamdi naftaadana u sabar insha allah midda kale dadka u fiirso qofkaan waxba kaa soo gelaynin adoon jarinoon bareero cad iga tag waxba iga kaa soo geli maayaan hadal qayaxan ku dhihin jis tartiibtaada lee ka gaabso waayo qofkaas maanta laga yaaba inuu ku dambaajinayo oo waa aragnay dad ilaa balwad la baray reerkii laga dumiyey rafaad maaragtay la geliyey marka waxa waaye siduu ilaahay ka yeelay horta nolosha noqonaysa annaga wax ma xifdi karna ilaaha waa xifdiyee laakiin bal ogow weynaadaa wanaagsanaadaa la yidhi danahaaga ogow ilaahana wanaajiye ilaah weyna waaxidee marka waa kaasaa topic kaste dad unbaa fahmaayo dad unbaa wax ka faa'iidi karo dad unbuu quseeya hadda daan caado ka hadlo waxaa laga yaabaa boqolaalo gabdho inay caadadaas danaynayeen iyo caynteeda iyo ogaashada micnaha waxa ku yimid caadada timahoo daata haddaan ka sheekeeyo dad badan inay daneeyaan wax timaha qurxiyo oo timaha badiyo oo timaha kobciyo ama maxaaba ku dhacaybo hee folicolkaaga muxuu la daadanaya oo timihii godkii ku jirta maxay uga soo daadanay maxay u bixi weyday maxay u dhumisay dhalaalka timuhuba waxay leeyihin wax loo yaqaana pigmentation marka hair pigmentationkaas wuxuu u dhuminaa ama kalarka u dhuminaa timaha lama yaqaano wejigaaga hadda dhalaalkaa ka dhumi karo wejigeena dhalaalkaa ka dhumo oo aniga hadda ka sheekeynayo
quruxda iyo hanaanka wuu dhumaa ama gabowga ayaa quruxda iyo hanaanka daamajeeyo waayo da-du waa quruxdii oo kaa baaba'day sax saqiir yar oo dhasho dhalaana iyo qof gabow ah oo intaa hoosana jiro ilaaha gaarsiiye isku dhaban maaha sax dhalinta waxaa la yidhi dhabankay ka muuqataa soomaaliyaa tiri marka saas waaye self love-kana wuu kaa muuqan karaa qofba qofka kale intuu naftiisa ka xanaaleeyo way kaa muuqanee tallaabaqaadkaaga iyo salaantaada iyo qosolkaaga iyo labiskaaga iyo tabarta enerjigaaga dhan way ka muuqan kartaa inaad naftaada keergaraysay ama aad keergaraysid iyo in kale dadka naftooda dayacay ama riski u ah in la dhibo in lagu qayliyo in la aflagaadeeyo in la yaso in la liido in lala buuqo waxaasoo doodoo dhanba aanan albaabadeeda iska soo dhuudhuujinin korkooday ka muuqataa cawiya casree buuq iyo qayle iyo muran iyo isqaqabsi ku jiraan dadka albaabadaas iska soo oodayne wax la murmo male sanadka dhan nabaday ku qaataan maasha allah sanadka kale nabaday ku qaataan dadka qaar waxay dhahaan ma xasuusto anoo qof la murmay maasha allah tabaarakallah ma xasuusto iyadoo layla qaylina ama laygu qaylina I mean it's not easy waxa cid kasta iska kaa banaysan karta inay kula qayliso so in lagula qayliyo haddaad kasii fooljignaato waxaa dhacaysa sanado dhan oo isku xiran oo taxanaa cid aad isla qaylisaan inayna jirin madaxaadu halkaas kaaga qaboo yahay markaa kusii darteed cibaadadaada iyo nafaqadaada iyo hurdadaada iyo jimicsigaaga iyo masaajkaaga qubayskaaga iswadwadkaaga oo dhan markaa ku dartid then now waa ogtahay inaad dhalaalaysa soo maha because you are happy maasha allah now you know what to do with life yeah meesha u socotid waa ujeedaa soo maha inkaar waa markaad fahmi weysa meesha u socotid iyo meesha xaal u socdo hadalka la sheega xataa haafaa ku daba maraa adoo iska diiqadaysana arkaysaa amuurta kheyr allaha ka dhiga allaha nooga dhiga dhammaan dadka self love-ka yaqaana xataa laguma degdego ila garo maanta dad xaas tahay laga yaaba xaajigaaga inuu kugu degdegin because wax kastoo dhaco naftaadaad ka jecesha ilaahay ka sako you come first naftaadaa kow eh hadduu qalad kaa galo so be it waa ibni aadan qalad galay sii soco there's nothing you can do maahano waa wax kuu qoran waana wuxuu qofkii ku dhaqmay soo go-aankaaga waa cadcad yahay dadka qaar making decision second kuma qaadato inkastoo go-aanka dhaqsi la gaaraana oo laga fiican yahay because you can't make a wrong decision laakiin warkaaga dhan waa cadcad yahay haydaarin kuma daaree dhibaatada waa ka fooljignaataa soo dadkaas ilaaha laga baqaaya si gaaraa looga baqaa laguguma dhici karo qalad because adiguba uma samaysnid dhacdhaca danahaaga farxadaada quruxdaada you do so much for you dadkuna waxay ku jeclaadaan markaad adigu naftaada jeceshahay markay naftaada wacan tahay markay naftaada farxsan tahay markay naftaada kalsooni haysato markaasaa lagu jecel yahay laakiin markaad adigu kala laalaado waa lagaa faa'iidaysan karaa xataa lagu dhihi karaa kala laalaadkaaba kugu nacaybo like yeah you're not my typekayga ma tiid waxaana lagaaga tegay wax kale maaha adiga isdayacay markaasuu qofku laba mar qoomameeya like how did this happen to me like sideen anu nafteeda u dayacay waxa naftaada u keenay inaad dayacdidni noloshaa biisii marka dadka kalead keergaraynaysay dadka kalead naftaada ka hormarisay wax walba naftaada naf kalaa ka hormarisay hadhowna markay nafti kale kugu nacday naftaada aad dayacday laba maraa qoomameyne ciilay way marka bilow inaad naftaada jeclaatay haddaa already jeceshahay naftaada ood si gaara u ogtahayna maasha allah allah kuu sii siyaadiyo allah noo siyaadiyo dhammaan duca la iskama reebay I love you so much dadka naftooda keergaray ani aadaa u jeclahay because you did something for you oo qof kale kuu sameyneynin wax kale qof kale kuu sameyneyna naftaada u samaysatay dad badanna way dareemeen markay naftooda jeclaadeen in la jeclaaday jacaylkii lasii jeclaaday naftooda lasii jeclaadeen oo maasha allah khayr badan iyo farxad badana ilaahay noo wada weydiinaa dhammaanteen meeshaa meel dhiiragelin waaye enjoy waxaa ka faa'iidid allaha kuu barakeeyo naftaada jeclow ilaahay ugu xamdi ilaahay ugu shukri just qofka aad tahay that's it ibni aadankoo la isku geey hadday ku ataagaan haddayna kolley yad kugu dhufan inaynan kugu noqonin wad then waxay afkooda ka sheegaan ayagoo dhan hadday yuusaan there's nothing they can do kuma riixi karaan because you're strong qof naftiisa jecel cidna ma riixi karto caawi biri haddaad caaytanta nin caayta maxaa af caaytama ninkiisa iskale qofkii tagana danihiisa u tegay so kalsoonidaada waa kor daruurahay dhaaftay maasha allah
marka allaha noo siyaadiye khayrka naftaada jeclow ilaahay ugu xamdi ilaahay ugu shukri iyo wuxuu ilaahay calaf kaaga yeelay dad iyo dunyaba annagana saaxiibkaagaa nahay saaxiibtinimo wanaagsan khayr allah u siiyo haye garabkaaga allah galo waxaan isku ognahay nafteena inaan jeclaano ilaahay ka sakow inaan is ogaano ahe allah na xifdiyo dhammaanteen self love kana aad iyo aad u jeclahay please ila jeclo fadlan ila jeclo khayr allah ku siiyo mahmahada markii laga yimaado self love ka waa mahmahadana saa u jeclaa waa ogtihiin because waxay tusaalo ay ku tusaan nolosha oo dhan waayo waa hadal xigmad leh waa hadal aad u qurux badan oo aad u kooban oo xigmadna xambaarsan oo dhaxal galgala waa maasha allah aqligooba kiciyaaba aqligoo hurdada ka kiciyaa ay ka kicisaa mahmaahda marka mahmaahda iyo ducada iyo self love-ka ama naftaada jeclow iyo waxaasoo dhan waa care special ah oo lacagna aana joogin maanta haddaad duco u baahan tahay ma iibsan kartid ducada waa weydiisan kartaa dadka iyo duceeye waa dhihi kartaa waa lagugu kabi karaa ilaahay ha kuu kaso oo ha kuu soo duxdo iyo midda aad ka shaqaysa ajir iyo xasanaad ood ilaahayna kaga rajaynaysid adigana ilaahay inuu kaa jisa mariyo meesha aad kaga ooman tahay saas waa samayn kartaa sadaqo inaad la baxdo wax khayr la waa niyeysan karta adna ilaahay inuu ku siiyo laakiin suuq intaad tagta sadaqa sooma gada karteed amiin xoogaaga iyo cindigaaga iyo xoolahaaga waa sadaqaysan kartaa laakiin sadaqaan u baahana inaan soo gato soo ajirkeeda saa u helo ma jirto sax midda kale jacaylka naftaada cid qasab kugu leh male waa dayici kartaa naftaada ha baaba'do meeshii ilaahay ugu talagalay gaaraysa ama isku roonaa noqon kartaa sidii loo yiribo ilaahay idankiisa allaha naga wada yeela dhammaan isku roon ma ruqato soo qofka isku roon ma dayacmo hadal macaan iskugu roonaataya nafaqa iskugu roonaataya kalsoonidoo dhisato dadka kuu daranood ogaato kuwa kuu fiicanood ogaato danahaagood garato raalli ku noqoto adiga uqubada iska ilaalisid iyo waxyaabaha dhibaatada kaa soo gaarayso meelo badanaa la iskaga roonroonadaa marka isku roonnimadii maaha waxaad soo miisanaysa oo suuqa kasoo gada karteed maaha it's just action aad samaynaysid iyo allaha noo kase isku fiirsasho aad lafahaaga u fiirsanaysid khayr allah ku siiyo waxaa qabsatid allah kuu kasay allahna kugu duway allaha nagu duwo wax khayr le inaan qabsano I love you so much enjoy self love ama jacaylka naftaada ilaahayna ugu xamdi ilaahay ugu shukri siduu ilaahay kaa yeelay cidduu ilaahay kaa yeelay iyo naftaada aad ku faraxsan tahay enjoy haye iisoo duceey waa idiisoo duceyna allahana khayro dhammaan cadowga allaha naga qabto xabiibka allaha noo badiyo allaha noo soo dhaweeyo dadka xabiibka ah hayehe waa inoo iyo dhiirigelinta kale iyo xilliga kale oon janalka kusoo noqdo hadduu ilaahay ka raali noqdo waxaan kaa codsanaha haddaa awoodid brograamada dhan layga noo saar haddaa awoodid noo ducee haddii kalena waa kuu soo duceynaa niyeyso adigana iisoo ducee waa iska niyeysana inaa wax khayr la iigu duceyseen insha allahu khayr walaaltinimo wanaagsan saaxiibtinimo wanaagsan meeshaan inta badan waxaad mudaa warka in dumar loo wado laakiin ninkii ragoo iska kaaya dhagaysto adiguna naftaada jeclow waayo ilaahay ka sakow naftaada jacaylka adeeg kaa sugee soomaali mahmaad waxay tiri ammaano afkaaga kaagama horeyso marka is ammaan laakiin isku ammaan wax khayr leh alxamdulilah inaan ummadda dhib u geysanin alxamdulilah anigana inaan dhib lee geysanin saasoo kale ammaantaada ha noqoto laakiin anaa kaa qurxan anaa kaa fiican ammaantaas waa xoogaa waa laga deyriyey marka ammaanta kale waxay tahay inaad naftaada ilaahay ugu xamdido ugu shukrido inaynan shar wadin adigana allaha kaa qabto wixii shar wado aamiin allaha naga wada qabto dhammaanteen hayahay cafiya caafimaad assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu